بسم الله الرحمن الرحيم لما دالين Soomaaliyeed ku soo dhawaada macadka Soma muuqaalkan waxaan ku baran doonaa practice lab oo ku saabsan sida loo abuuro VLAN muuqaalka hore waxaan ku soo qaadanay concept iyo theory ku saabsan VLAN ayaan soo qaadanay haddana waxaan guda galaynaa practice-ka VLAN wili wax badan ba inooga harsan theory ahaan VLAN laakiin hadda waxaan rabaa inaad concept-igi hore aad soo baratay muuqaalka hore inaad practice ahaan u aragto hadda marka aan guda galno marka bismillaahir rahmaanir rahiim marka hore aan scenario waxaan practice ku sameeyay oo ku dulmaro kadib aan wada galno lab bismillaah waxaan leenahay sidatan inaga waxaan practice ku sameeynaa inaan haysano hal switch salahan switch kaasna nolaga baahan yahay inaan u kala qaybino saddex VLAN salahan waxaan haysanaa inaga switch 1 baan haysanaa switch 1 waxa ku xiran ka soo qaat 6 computer labadii computer ba ee 6 kamid ah waa isku network labadaani waa hal department labadan computer kale waa hal department conceptiga VLAN ka muuqaalka hore ku soo sharxay oo ah in labada computer oo isku network ah ama isku VLAN ka ah inay wada xiriir karaan kaliya computer oo kale VLAN ah ma wada xiriiri karayaan laakiin intaan labka hore ka galin waxaan rabaa marka hore inaan wada aragno dhowr points oo laga maarmaan u ah inaan practice-kaani sameeyno dhamaadka muuqaalkan waxaan ku sii doonaa mashruuc yar oo VLAN ka ah oo adiga aan ka doonayo inaad soo xaliso bismillaah marka hore waxaan ka rabaa koo arinta sidana bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan leenahay koo marka ugu horeysaba inaga markaan haysan switch markaan haysano oo lagu yiraahdo switch-kan waxa ku xiran 6 computer labadiiba waa isku department waxaan marka hore ka doonayaa inaan sameeyo documentation ah portiska ay ku kala xiran yihiin document garay salahan kan waxa leedahay macallin waa port 1 kan waxa leedahay waa port 2 salahan computer kaani wuxuu switch-ka kaga xiran yahay port 5 kanna wuxuu kaga xiran yahay port 9 shardi ma aha computerada isku VLAN ka ah in ay ku kala xiran yihiin godad numberadooda ay sequence yihiin ama isku xigaan shardi ma aha salahan oo kale labadan computer department ama VLAN ka gaarka ah sidoo kale waxay ku kala xiran yihiin kaba soo qaadba mesela salahan 12 number 12 iyo number salahan waxa dhahdaa 17 ay ku kala xiran yihiin okay waxaan kaloo ka doonayaa sidoo kale inaad documentation ku sameeyso magacyada departmentska ay ku kala matalaan VLANs-kaas idan inaga muuqaalka waxaan ku soo sheegnay department kasto waa network gaar ah department kasto waxaan u sameeynaa marka VLAN gaar ah marka salahan waxay leedahay macallinkani department-gan aan u qaadano management department-gan aan u qaadano salahan mesela sales department-gan aan u qaadano marketing shirkad inay yihiin shaqaalaha marketing shirkadda waa department u gaar ah okay marka inta ay sameeyso sharaxaad muuqaalka hore waxaan ku soo sharaxay waxaan ku yiri management-iga waxaan wada gelinaynaa Soomaha VLAN X salahan VLAN X kanna waxaan gelinaynaa salahan VLAN Y kanna waxaan gelinaynaa VLAN Z ereyada marka X iyo Y iyo Z waxaan ula jeedaa kaliya waa identifier ilan VLAN kasto waxaan u baahanahay inaynu ka duuno VLAN ka kale sadarteed marka numberka meeshan ku qormaayo waa number oo u gaar ah ama unique u ah VLAN-ka hadda ma oran karno management-iga waxaan ka dhigaynaa VLAN X sales-kan waxaan ka dhigaynaa VLAN X ma suuragal ma aha oo isku network bay noqonayaan marka aan u imaado marka numberkan X iyo Y Z aan u imaado marka hore numberkaas waxaa loo yaqaanaa VLAN ID ayaa loo yaqaanaa VLAN identifier waa just number hadda aniga X iyo Y Z waxaan ula jeedaa kaliya concept-iga inaan ku faahno laakiin waa numberada marka numberadaas mesela waxa ka bilaabaysaa from 1 ay ka bilaabanaysaa from 1 ay ka bilaabanaysaa salahan ilaa ay ka soo gaarto 4000 iyo dhowr waan arki doonaa laakiin kaliya waxaan ka doonayaa kaliya inaan siiso number inaan siiso aan ka doonayaa mesela salahan aan number inaga aan qaadano mesela aan u qaato VLAN X ka aan u qaato inuu yahay salahan VLAN 10 this number VLAN Y ga aan u qaato inuu yahay VLAN 20 سأدرتيد ماركتينج أنا أوقاته فيلان صدّن السويتش كمرك وحولة تعاملها this ID بولة تعامله سيدو السويتش كأوكلا صاروا department كأم فيلانس ككل دوان وحو السويتش كهاد دوانيا إنا سيسو فيلان ID number إنا سيسو
nambarada marka 10 iyo 20 iyo 30 hadda baan iska inaga baahada dooranay oo switchka marka soo gadanaysid adiga nambaradan kuugama diyaarsano adiga baa oranay switchka waxa ay abuurtaa switcho VLAN numberkeedu uu yahay 10 iyo VLAN numberkeedu 30 uu yahay iyo VLAN numberkeedu oo 20 yahay adiga baa ka dalbanay switchka inta meel garat okay mid aan dhahno marka practice-ka VLAN ka sameynaysid marka practice VLAN sameynaysid real ahaan ama assignment ahaanba co documentation ضروري إني وعناها واحد كوعديهين إما سد ديبارتمنت هستا VLAN كسو أي دي إنا عديسيد جدد كأي كمبيوتر هذا كحرين إنا عديسيد documentation قاعدت أو فهمت documentation كوحك معناها كسي دمن واحد هاي إنا سي عديسيد سيدو كلا network address ك for each VLAN إلى VLAN كسو network جارة سماها سادرت حلنا VLAN 10 أي بي كذا أما network address كذا وحويان 192.168.1.0/24 سيلسكا waxaa leedahay 192.168.20/24 waxa uu imaanaysaa marka VLAN Z ku imaw waxaa leenahay kanina waa 192.168.30/24 baa leenahay documentation ka waa point ugu muhiimsan kullama documentation ka uu waadax u yahay kullama error kaaga iyo khaladaadkaaga ay yaraadaan iyo sidoo kale xitaa haddii khalad uu ka dhaco troubleshoot ka iyo cilad bixintu way ku sahlanaysaa marka documentation ka iyo wax kasta clear ku yihiin ku talagal waa step koowaad documentation ka waa si guud ahaan aan u imaado marka lab ahaan ka practice ahaan steps ka u baahana mar alla marka VLAN laga hadlaayo waxa u baahan tahay laba step in raacdo step 1 marka hore switch ka gal waxa abuurtaa VLAN iskaga abuur bas create your VLAN ila aad adiga imise VLAN switch kaga baahan tahay inuu ku sameeyo saddex VLAN 10 VLAN 20 VLAN 30 create your VLAN ko marka VLAN kaaga abuurto mid ba ku harsan marka si fiican iskaga fiiri wax yar ka hor waxaan ku soo dhahay documentation ka waa muhiim soo maan ku soo dhihin waxa documentation ku muhiim yahay sidoo kale iska fiiri meeshan kani waa port 1 waa godka koowaad fast ethernet 1 kana waa godka labaad number 1 iyo number 2 ports ka numberadooda kala ah waa inaad ku beerisaa si fiican iskaga fiiri waa inaad ku beerisaa VLAN 10 oo adiga mesela yaa u sheegayo port 1 iyo port 2 in ay ka tirsan yihiin VLAN 10 waa in adigu sheegtaa Soomaa ina dhahda switch 1 oo waxa igu beerisaa 1 iyo 2 godadkaaga 1 iyo 2 ah balniyo waxa igu beerisaa VLAN 10 kamid dhig godka sagaalaad iyo godka shanaadna laba computer ba igu xiran aan ogahay in ay kala isticmaalayaan shaqaalaha shirkadda ee Siliska saadirta Siliskuna waxay ii tahay VLAN 20 ee 9 iyo 5 waxay ii gelisaa walaalo VLAN 20 ii geli meeshan macnaheedu waxay tahay anigu markaan VLAN ki abuurto waa inaan ku biiriyo god kasto VLAN kan ugu tala galay waa inta kaliya waa step 2 waxa weeyaan waa assign ports to or for specific VLAN mid kasto waxay gelisaa specific VLAN gali VLAN ka adiga aad ugu tala gashay gali waa inta kaliya mid aan ku weydiiyay marka bismillaahir rahmaanir rahiim su'aashan ku weydiina waxay tahay anigu markaan 1 iyo 2 soo qaato godadka baan ula jeedaa magacyadooda nambaradooda 1 iyo 2 markaan soo qaato aan ku biiriyo VLAN 10 markaan ku biiriyo macnaheedu maxaa ka ratibmay meeshaas waxa leedahay macallin su'aashaas la isweydiiyaa marba hadaa 1 iyo 2 ku biirisay hal VLAN oo 10 ah macnaheedu waxay tahay labada computer ee godka koowaad iyo godka labaad ku xiran waa isku network waa isku VLAN waa isku department inta ba karatibmaysa hada su'aal ku weydiiyo intaan adiga 1 iyo 2 aadan VLAN 10 ku biirin asal ahaan maxay ahayn su'aashan ay fahantaa rajayna insha Allah okay aan ta su'aashan ku waadixiyo intaan tagna marka bismillaahir rahmaanir rahiim intaan tagna ma xasuusataa markaynu soo joognay basicska asaasiyaadka yani markaan soo qaadanaynay basicska maxaa oran jirnay switchka dhammaan godadkiisa kombiyuutarada ku wada xiran oo dhan hal network bay ka wada tirsan yihiin Soomaan oran jirin mesela salahan switch baa haystaa waxa ku xiran switchkan ka soo qaad ilaa 5 computer markaan basicska joogno waxaan oran jirnay portska switchka uu leeyahay oo dhan kombiyuutarada ku wada xiran waxay ka wada tirsan yihiin hal network okay theory ahaan waa maxay marka theory ahaan waxa weeyaan default ahaan
all ports oo switchku uu leeyahay waxa weeyaan waa same network waa maxay same network macnaheedu waxa weeyaan waa same VLAN isfaans kaga fiiri laakiin mid uu ka hadmay meeshan okay macallin aniga markaan switch soo gato switch cusub baan soo gatay waxa ogahay aniga switch cusub aan soo gatay godadkiisa oo idil in isku network yihiin waa ogahay theory ahaan taa waxaan soo qaadanay basics ka soo qaadanay laakiin macallin waa maxay same VLAN ka ay sheegayso oo aniga switch markaan soo gato VLAN baa ku abuuran default ahaan jawaabtu waa ha oo macnaheedu waxay tahay dhammaan godadka switchka uu leeyahay oo dhan ana markaan leeyahay godadka waa portska baa ula jeedaay number 1 number 2 number 3 number 4 illa godka 24 ka soo qaadba yani ka soo qaadna switchkan uu leeyahay 24 god inuu leeyahay ka soo qaad dhammaan godadkan oo dhan theory ahaan asaasan bas sidee ku noqdaan same network macnaheedu waxa weeyaan godadkan waxay ku wada tirsan yihiin VLAN bay ku wada tirsan yihiin oo default ahaan ku imaato switchka VLAN kaasna default ahaan switchka ku imaatana numberkeedu waa wax yar koon waxaan ku soo dhahay VLAN iska adigu u kala saarto u sameeyso number u sameeyso mana ku orin مثلا kan waxaan niri waa number 10 kan number 20 kan number 30 soo ma ahayn waxaaba jirtaba VLAN adiga switchka kugu diyaarsan asal ahaan oo godadka switchka uu leeyahay asal ahaan dhamaantood waxay ku wada biirsan yihiin VLAN 1 bay ku wada biirsan yihiin saa darteed baan u dhihi jirnay asal ahaan markaan joognay basicska godadka switchka computerada aan ku wada xirto halka switch computerada ku wada xiran waa isku network asal ahaan marka waxa theory ahaan waxa ay tahay isku network waxay u noqdeen in dhammaan godadkaasi ay ka wada tirsan yihiin hal VLAN ila inaga waxaan soo dhahnay waxir ka hor godka koowaad iyo godka labaad hadaan ku wada biiriyo VLAN 10 macnaheedu waxay tahay labadan god computerada aan ku xiro waa isku network asal ahaan hadaan su'aasha ku soo laabto marka oo ahayd 1 iyo 2 intaan adiga ku biirin VLAN 10 intaadan ku biirin ayagu waa 1 iyo 2 iyo portska oo idil switchkii halkee bay ka tirsanaayeen asalkooda muxuu ahaa waxay leedahay macna hadaan fahmayo dhamaantood waxay ka wada tirsanaayeen hal VLAN oo lagu magacaabo VLAN 1 lagu magacaabo okay مثلا hal mar ku soo celi kadib waan ka sii soconaya مثلا godka shanaad iyo godka sagaalaad haddaan la joogo intaadan adiga 5 iyo 9 intaadan ku biirin VLAN 20 5 iyo 9 asal ahaan halkii ku biirsan yihiin VLAN 1 bay ku biirsan yihiin adiga waxa laga doonayaa marka inaad ka soo qaado from VLAN 1 ku soo biirsato VLAN ka ugu tala gashay ee 20 ah saadirteed godka shanaad iyo godka sagaalaad waxa ka dhigtay isolated from other ports waayo 5 iyo 9 waxa member kaga dhigtay same VLAN equal same network equal same department حرجان انتاس انا الى فهمت يا رجالي اوكي بوينت كلا ير انا وصل ابتر امر مثلا دوكيومنتيشن مركز الى حسوسه وي حد كدنبيو دوكيومنتيشن waa laga maarmaan مثلا salahan VLAN 10 iyo 20 iyo 30 mid kasta muxuu inoo matala inaga 10 department uu ku matala VLAN 10 department uu ku matala waxa leedahay macluumaadtaas la isweydiiya meeshan bay ku qoran tahay waa management VLAN 20 na waa sales VLAN 30 na waa marketing اوكي هذا كو ويدي لح بالكذب مثلا نتوجي ادي واحد حرتي وادستي وكتكت افتر مثلا 1 year 2 year او كلا عيلada imaatay ama natog wal balaarinaya adigu iloobi kartaa ilaa bil aadan baata waxaad iloobi kartaa oo isku qaldi kartaa bal numberka 10 iyo u taagna ma number 10 ma marketing buu ii matalay mise sales buu ii matalay number 20 VLAN 20 buu la jeedaay ma wuxuu ii matalay sales ma wuxuu ii matalay management waa isku qaldi kartaa waa iloobi kartaa سادرتيت مركا سمينيسيت create VLAN مركا سمينيسيت create VLAN مركا سمينيسيت كما عندي هذا كسينيا وا symbol كما عندي waxaan rabaa in ku sharaxo switch ka baaglaysa isom baaglaysa configuration ka baagaysa waxa qoraysa symbol ahaan kama dhigan ba qoraysa waxa leedahay VLAN space number ka adiga aad doonaysid waa number 10 in enter baa leedahay marka enter dhahdo switch ka asaga wuxuu u baahan yahay kaliya number 10 switchku wuxuu la tacaamulaa ID-ga si saans kaga fiirmashaan switchku wuxuu VLANska ku kala saaraa asagoo isticmaalayo ID of the VLAN identifier ka VLAN oo ah number like adiga ka bil aadan ahaan numberka oo iloobi karta qolada u taagnaa waxa marka ku banaan oo option ah laga maarmaan ma aha waajib ma aha ba ula jeeda
oo hadda ka tagto shaqada VLAN-ka waa saliim wax cilada ma haysato oo macnaheedu waxay tahay waxa sameey kartaa description inaad ku biirsato markaad abuurto VLAN 10 waxa leedahay name mgmt waxa leedahay this number wuxuu igu taagan yahay for management kadib waxa leedahay exit waa ka bixisa marka VLAN waa ka bixisa sidan waxa ku abuurtay your first VLAN humble okay aan galna marka hadana mesela su'aalahan waxa had abuurtay adigu VLAN 20 ni abuur waxa leedahay macallin wax la isweydiiyaa maanta waxa leedahay waa VLAN 20 hada inta email waxa leedahay name igu tagna salis hada ilooyba waxa lix bil iyo 2 sano la gaaraa hada ilooy VLAN 30 name marketing laakiin mid aragtaa meeshan VLAN 20 markaan abuuray oo aan magac u baxsaday exit maana dhihin isla markii waxaan sii abuuray VLAN 30 waa sameey kartaa waa caadi oo okay dhimalaan isuj ku fahmaya ina ka baxday meeshan exit laga marmaama step ka sidan waxa ku abuurtay your VLAN iskaga ku abuurtay okay aw imaana marka step ka labaad ah ku biirista lagu biirinayo interface gaar ah VLAN gaar ah waa simple aad buu fududahay kaliya hada fiilahan faahsan tahay command wax sahlan mesela salahan aan aniga adiga wada tagno godka koowaad aan wada tagno number 1 aan tagno number 1 ina aan galno waa godka koowaad aan ku biirino VLAN 10 waxa leedahay sidatan simple ahaan configuration ka tag step ka labaad ayaan ku siinay hadda configuration kiisa waxa tagaysaa marxaladda configuration ka baad tagaysaa waxa leedahay marka sidatan baa leedahay mesela su'aalahan waxa leedahay interface f01 waa simple soma ilaan adiga interface ka doonaysid inaad ka rarto from VLAN to VLAN baad galaysaa hadda aniga ma ogahay intaan VLAN 10 ku biirinin intaan f01 ku biirin VLAN 10 hadda aniga waxaan ogahay theory ahaan in dhammaan interface-yada oo dhan inay ka tirsan yihiin VLAN asal ah oo lagu magacaabo VLAN 1 saadirteed hadda aniga waxaan ka soo rarayaa kani from VLAN 1 to VLAN 10 simple ahaan waxa sheegta on kaliya VLAN-ka aad u raraysid sheeg خلاص asaas soo rarmay marka interface-ka gudihiisa gasho waxa leedahay simple ahaan switch port access VLAN 10 inta kaliya macnaheedu waxay tahay this interface waa member of VLAN 10 kadib next meeshaas ku dhameysay saas waxa soo qaaday f0 ba soo qaaday u soo rartay from VLAN 10 arin yar hadda ku sheego waana simple laakiin insha Allah taala waxay ka saaciid doontaa fahanka mesela salahan computerka koowaad shirkadda mesela computerka 1 waxa ula jeedaa port 1 switchka computerkan ku xiran shaqaalaha isticmaalaya computerkan waa qof ka tirsan qaybta maamulka shirkadda Soomaa kaba soo qaadba xafiiskan qofkii joogay ee maamulka ka tirsanaa shaqadii uu ka tagay qof kalena laguma bedelin shirkaddu marka waxay shaqaaleysiisay qof saddexaad oo kamid ah departmentiga marketing imise qof baan haystay waxaan haystay laba qof ama laba shaqaale baan haystay Soomaa ilaan laba port waa portiga 12aad computerka ku xiran iyo portiga 17aad computerka ku xiran labada qof ee kala isticmaalayso labada computer waxay ka tirsanaayeen marketingka shirkaddan waxay shaqaaleysiisay marka qof saddexaad bay shaqaaleysiisay oo marketingka ka tirsan computerka qofkaas iyo xafiiska qofkaas la siiyana waa مثلا adan visual ahaan saadan ugu wareerin kan iska tir computer iska tir qofka uu tagay مثلا computerka qofka saddexaad ee marketingka lagu soo biiriyay waa kan computerkiisa waxa lagu xiriiriyay godka koowaad ee switchka lagu xiriiriyay macna waxa leedahay su'aashaada ma waxa weeyaan f01 wuxuu inoo biirsanaa VLAN 10 buu ku biirsanaa waxaan doonaynaa marka had f01 in u soo rarno VLAN 30 in loo soo raro ilaan VLAN 30 maxay ku midashaa waa marketing waxa sameeysaa marka mar kale waxa dib u gal مثلا command-gan waxa qortay 6 bil ka hor ama 2 sano ka hor qortay command-ga adiga network saamu ku shaqeynay qofkii baabaxay
F01 waxaa lagu soo rakibay computer ka tirsan qaybta marketingka. After 1 year 2 year waxay tunto haato adiga switchka baa marka la galaysaa waxa qoraysaa interface F01 baa qoraysaa ilan isla interface ku baa galaysaa waxaa leedahay marka switchboard access VLAN 30 kadib maxaa leedahay exit خلاص waa inta kaliya isla marka switchka muxuu fahmayaa marka command-igan iyo command-igan keebaa dambeeya kan baa dambeeya Soomaha kani wuxuu update ku sameynayaa command-iga hore meeshi VLAN 10 ahayd wuxuu isku bedelaysaa VLAN 30 uma baahnid inaad command-iga horta tirtid kadibna command cusub horta uma baahnid just waxa qortaa update ka qor asaga ay override sameynaya marka oo tiraya wixii hore يعني انت الى فهمتنا ورجينا ان شاء الله اوكي هذا ان كدي سنه marka VLAN 10 ان كدي سنه ان سو 20 marka اوكي رجينا marka taana ina ila fahantay marka hadda aan live galno intaan marka aan اوكي aan inta ku joojiyo marka sawirsan muuqaalka u yara dheeraanin kaliya conceptiga wixii hadda adiga meel ku qor S1 sawir meel ku qor مثلا wixii aan sheegay mar ila umar ku celi maskaxda si tartiib ah u gasho insha Allah taala wixii mugdi kaaga jir soo weydii muuqaalka soo socdo network-gaani ama topology-gan baynu dhisi doonaa insha Allah taala